قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. ismaqal wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad miidiya qodobada ku daawo doontaan waxa ugu dooron xildhibaan carab oo ka badbaaday qarax ay shabaab xalay kula eegteen bartamaha muqdisho iyo khasaare xoogan oo qaraxa ilaaladiisa ka soo gaartay saraakiishii hiiraan ugu sarreysay maamulka hirshabeelle oo shaqadii laga joojiyay iyo khilaaf ka taagan magaaladaasi kenya oo quus ka taagan gaadiidka dagaalka ay ka iibsatay dalka China tiro badan oo shabaab ah oo lagu dilay dowlad goboleedka Jubbaland dhismaha wadadii muqdisho iyo afgooye xiriirisay oo istaagtay injineeradii oo shaqada iskaga cararay xog ayaan idinkaga hayaa waxa kala qabsaday erga soo dooratay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo shabaab Mareykanka oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka caawinaya dagaalka shabaab sacuudiga oo qiimo yaab la ku xaraashay qunsuliyadii lagu gowracay wariyihii u dhashay dalkaasi Jamaal Khashoggi hagaag haddii aad ugu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka taariikhdu waxay tahay 19 bisha 9 September 2019 intii aad maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa nooca iyo khasaaraha ka dhashay qarax miino oo xalay ka dhacay afaafka hore ee hotel cusub oo ku yaala isgoyska shaqaalaha wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho jugta qaraxan ayaa laga maqlay dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana lala eegtay xildhibaan Cabdulqaadir Carab oo ka tirsan golaha shacabka qaraxaas oo ahaa miino la dhigay wadada dhinaceeda ayaa aad ugu dhawaa hotel cusub oo ay ka socotay munaasabad xariga looga jarayay sidoo kale waxa aad u badnaa isticmaalka wadada xilliga qarxu dhacayay dadka wadada marayay xilliga qarxu dhacay waxa kamid ahaa xildhibaan Cabdulqaadir Carab oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana ku dhintay laba kamid ah askarta ilaalada u ahayd oo saarnaa gaari cabdibilaa oo ilaalinayay xildhibaanka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen waxaana la sheegay in xildhibaanka uu ka badbaaday qaraxaas laba qof oo kale oo shacab ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen iyo dhaawac shar waxaana goobta yaalay gaari nooah oo uu watay qof shacab ah kaasoo gabi ahaantiisba gubtay isaga iyo laba mooto bajaaj inkastoo aan si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha rasmiga ah wadarta guud ee dhimashada ayaa noqonaysa inta la og yahay 4 ruux oo laba askar ahaayeen iyo dhaawac 5 kale waxaana goobta soo gaaray askar ka tirsan booliska Soomaaliya xildhibaan Cabdulqaadir Carab ayaa la sheegay goobta laga kaxeeyay isagoo bad qaba markaana hiiraan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya qaybta 7-aad ee ciidanka xoogga dalka gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa waxay shaqo joojin ku meel gaar ah ku sameysay ku samihii taliyaha ciidamada qaybta booliska gobolka Hiiraan iyo kan saldhigga booliska magaalada Beledweyne warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha maxkamadda qalabka sida qaybta 7-aad Dhamme Maxamed Cabdulle Aadan ayaa waxa lagu sheegay in shaqo joojin lagu sameeyay ku samihii taliyaha ciidamada qaybta booliska gobolka Hiiraan Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle iyo taliyaha saldhigga booliska Beledweyne Gaashaanle Cabdi Cumar Siyaad sababaha shaqo joojinta saraakiishan ayaa waxa lagu sheegay kadib codsi hore oo ka yimid xeeraarinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya isla markaana looga dalbanayay inay maxkamadda hor keenaan askar ilaalo u ahayd sidoo kale taliyaha ciidamada booliska Hiirshabeelle ayaa lagu amray inuu fuliyo amarka maxkamadda ciidamada qalabka sida isla markaana shaqadii ay hayeen ay sii wadaan ku xigeenada taliyaasha shaqada laga joojiyay gudoomiyaha maxkamadda ayaa mar uu dhacdadan ka hadlayay waxa uu yiri saraakiisha shaqada laga joojiyay booliska ah oo
saldhigga beledweyne qaybta gobolka hiiraanba sida waraaqada ka soo baxday garsoorka cadeynaysa waxay ahayn saraakiilka amar adeegtay awaamirta maxkamadda ciidamada sidaas daraadeed ayaana shaqada loogu joojiyey waxyaalaha ay diideen oo amar diidada ku sameeyeen waxay ku caddahay warqada kuna qodobaysan tahay waxaana waaye dhibanayaal Soomaaliyeed oo ka soo dacwada askarta iyo ka madaxda u yihiin oo markii laga dalbay askarta inay keenaan garsoorka ay horkeeni waayeen sidaas ayana waraaqadan ay ku caddahay shaqo joojintoodana sidaas muddo ayaana laga dalbay inta warqad loo diray inter iyo taariikhda loo dirayna warqada xaashida oo inay ku soo gaartay aan filaya ay ku qoran tahay qodobada meesha ku qoran oo xeerarka noo dejisan ah oo mid walba qodob ayaa la saaray dhammaan qodobadaas ayaa fasaxayo in garsoorka ciidamada uu ka joojin karo sargaal walba ama uu ka hakin karo xitaa la baari karo oo la xiri karo cadaaladana la hor istaajin karo haddii shaqadiisa mataqaanaa oo aad ay ka timaado heer dowlad goboleed ay ahaayeen wuuna dhaqan galay amarkii maxkamadda marka waxaa kaliya haddana qorshooyinka labaad oo garsoorka ama nidaamka ama qaynuunka u dejisanay ayaa iyadana la wajihi doonaa kiisaska oo askarta ay iyaga inay garsoorka hor keenaan ay diideen waa jirdil ay geysteen askarta qaar marka waxyaalo noocaasa lagu wada eedeynayaa eedeysanayaasha ay hor istaageen inay garsoorka hor keenaanna waa eedeysanayaal ka tirsan askarta booliska ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa howlgallo qorsheysan waxay saacadihii aan soo dhaafnay ka furiyeen deegaano hoostaga degmada Jamaame ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan ururka Shabaab deegaanadii ciidamada Jubbaland howlgallada ka fuliyeen waxaa ka mid ah Bandarjadiid Maali Janaale Koban iyo Araaro dhamaantood ah deegaano dhaca webiga jinkiisa saraakiil ka tirsan ciidamada Jubbaland oo howlgalka hogaaminaysay waxay sheegeen in ciidamada Jubbaland ay shabaab kala wareegeen deegaanada Bandarjadiid Janaale iyo Maali dhinaca kale afhayeenka wasaaradda amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen ayaa sheegay in howlgalkaasi lagu dilay ilaa 13 ka mid ah dagaalamayaasha ururka Shabaab walow aysan jirin cid ka madax bannaan oo xaqiijinaysa warka afhayeenka ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo ciidamada xoogga dalka qaybta Jubbaland ee magaalada Kismaayo waxay howlgallo ka sameeyeen eerida Jamaame tuulooyin hoos yimaado alxamdulillah ciidamada waxay ka soo hoyeen guulo aad iyo aad u weyn kooxihii dhigaabka shacabka Soomaaliyeed dhibaataynayay halka isbaarada ay u taalayna way ka guuleysteen liban iyo guul aan la soo koobi karin bayna ka soo hoyeen howlgalka sameysay muxuu yahay marka mudan ma dagaal aad qaadeen ba mise waa dhaqaaq ciidan oo caadi ah shaqadoodii qabsada way walaal deegaanada ay kooxaha dadka ku dhibaataynayeen oo shacabka Soomaaliyeed kuwa meesha joogan ay baadka ay qaadanayeen noloshooda ay u diidanayeen kuwa deegaanada nabadda ah joogan ay kaga soo mareegayaan buuxa deegaanadina waa laga furay maxaa khasaaraha ka dhashay walaal ayaga dhankooda 13 ayaa kaga baxtay dagaalkii asaga ahaa annaga xagga iyagana 3 dhaawac ayaa jirtay wax dhimasho ma jira dhankiina may wax dhimasho xagga iyaga ma jiraan dhaawac goobihii lagu dagaalamay jooga goobihii lagu dagaalamay ciidanka iyaga ku sugan dowladda Kenya ayaa sheegtay inay qoys ka taagan tahay gaadiidka qaada ciidamada iyo horey uga iibsatay dalka China gaadiidkaas oo loo yaqaan ABC ayaa waxaa adeegsaday ciidamada Kenya ee ku sugan gobolka Soomaalida waxaana lagu sheegay inaysan karin miinooyinka iyo qoriga RPG-ga oo inta badan adeegsadaan shabaab hase yeeshee waxaa su'aalaha hay'adaha ammaanka Kenya ay ka qabaan gaadiidkaas kordheen toddobaadkii hore markii 10 ka mid ah ciidanka Kenya lagu dilay weerar ka dhacay agagaarka Ceelwaaq ciidamadaas ayaa adeegsanayay gaariga aan miinada iyo qoriga RPG-ga karin ee ABC laakiin gaariga ayaa kala firdhaday waxaana halkaas ku dhintay 10 askari halka 20 kale ku dhaawacmeen ayaa sheegay inay ka niyad jabeen gaadiidka ay dowladda Kenya ka iibsatay China oo loogu talagalay in loo adeegsado dagaalka iyo goobaha colaadaha gaadiidkaas ayay dowladda Kenya u qaybisay ciidamada ka howlgala deegaanada Soomaalida si ay iskaga caabiyaan weerarada shabaab qobarada dhinaca ciidanka ayaa sheegay in gaadiidkan oo ay farsamayso shirkadda Buli Technologies ee dalka China aysan ahayn kuwa ku filan ammaanka ciidanka Kenya qaarkood ayaa ku doodaya in tayada gaariga aysan ku xirneen qaraxa balse tahay sababta gaadiid wanaagsan oo u burburiyaan awoodda maadada qaraxda
waxaa istaagtay dhismihii ka socday wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Ugu yaraan 3 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen kadib markii gaariga ay wateen miina kula kacday inta u dhaxaysa jaamacadda Shabeelle iyo deegaanka Tabeelaha. qaraxa ayaa lala eegtay injineer Turki ah oo ka qayb ahaa dadka dhisaya wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. dadka dhaawacmay ayaa kala injineerka Turkiga ah iyo 2 qof oo ilaaladiisa ah oo Soomaali ah. xilliga qaraxu dhacay injineerku waxa uu kormeerayay qaybaha dhismaha wadada waxaana dhaawiciisa loo soo qaaday Muqdisho. wadadan u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye waxaa ka socda dhismo waxaana ka jira dhaqdhaqaaqa gaadiidka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahayba. dowladda Sacuudiga ayaa iska iibisay dhismaha qunsuliyadii ku taalay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, taasoo sanadkii hore lagu dhexdilay wariyihii dalkaas u dhashay Jamal Khashoggi sida uu sheegay TV-ga Turkiga. TV-ga ayaa sheegay Talaadadii in dhismaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku yaalay xaafadda Liford ee magaalada Istanbul lagu iibiyay 45 milyan ka hor 3 meelood hal meel qiimihii markii hore laga bixiyay. TV-ga ayaa sheegay in Sacuudiga dhismo cusub ka iibsaday xaafadda Sirriyeer ee magaalada Istanbul, halkaas oo u noqon doonta qunsuliyadda cusub ee Sacuudiga waxayna daris la noqon doonaan midda Mareykanka oo halkaas ku taala. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo la hadlay Middle East ayaa sheegay inaysan weli helin macluumaadka ku saabsan in Sacuudiga iska iibiyay dhismaha qunsuliyadda Istanbul ee lagu dhexdilay Jamal Khashoggi. dowladda Sacuudiga ilaa hadda wax qunsuliyada uma joogo Istanbul tan iyo dilkii Jamal Khashoggi, balse safaaradda ayaa bixisay adeegyada dalku galka oo kaliya. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawadi subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.